xusuusan kartaan maalmahan social media wixii dhex yaalay habar wasiirada oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo maxfal meel dhan oo la marayo oo public ah maradii gogosha lagu seexanayay sarwaalkii raggu ay gogosha ku seexanayeen hatta ma sarwaalkii banaanka loogu baxay waa sarwaalkii sariirta ay la taagan tahay isku sawiraysaa markaasay social media soo dhigaysaa diintu sidaas dawlad iyo dadba mas'uuliyad ay nooga wada saaran tahay ilaahay idinkiisa gaarana dawladdu way u sii saaran tahay waan ilaalinaynaa waan dhowraynaa wixii horu marinayo diintan samaynaynaa wixii maxaa ku dhaqankeeda xoojinayo ayaan samaynaynaa ilaahay idinkiisa xataa inda adayga iyo xishood darrida iyo sirriig la'aantu waxay gaadhay heerkaasay gaadhay xataa dumar caadiya maaha waa islaan 60 jir ka weyn maxaa kuu hadhay oo da'danaad isu qaawin oo maxaad raadinaysaa risaalada ay diraysa iyo fariinta ay diraysa habartaasi ma taqaan adiga waa fariin risaalay xambaarsan tahay ma aha bilaash ma aha risaalay xambaarsan tahay barnaamij waaye dadka Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka walaalayaal diinta ilaahay waa waxa aan ku midaysanahay nasiibka aan leenahay inaan boqolkiiba boqol muslimiin noqon sunniyiin ahaan shaafiiciin ahaan يعني inaan midaysanahay dhinac walba ka midaysanahay tilmaamay midnimadaasi wanaagsan ee ilaahay oo hadiyada noo siiyay aan ilaalino waxa ka soo sokeeya intaas waa amal adduunye iyo maxaan ku raada damac bini aadanay ay ku soo dhamaanayaan aan iska ilaalino wax yar ka horna mid kale waa tii iyaduna lahayd xeerkii jinsiga iyo kufsiga wadaadaan noo diiday oo ka hor yimid si ay toosh ugu ifiso wadaaddaa waxaan diidan yaa diiday ummaddii muslimkaa diiday baarlamaankii baa diiday wadaad cid aan ahayn baa diiday wax urayaad meesha keenteen oo laga yaqyaqsado oo qashin ah raggu ha isguursado dumarkuna ha isguursadeen ninkuna xaaskiisa hadduu u tago waa zino hadduu kufsi baa la yidhaahdaa hadday labadan taata caadi isu ogolaadaanna zina maaha xor weeye way isfuulfuuli karaan waxaasaa intay la shiriimaadeen oo ummaddu maya tidhi bay doonaysaa inay tidhaahdo dhowr wadaad baa noo diiday dhowr wadaad oo kuwa waa madaxdii maxay shareecadu u tidhi war guryihiinna jooga waxa iyo wax ka daran baa laga baqay ummad fursadaano kala haysata ee noocaan ah ee isku maxaan ku hal ummad ah dhalasho wadaagta diin wadaagta af wadaagta deegaan iyo maxaan ku dhaqan suuban wadaagta intaba adduunyada kuma badna waa naxariista ilaahay aan ka jawaabno aqli iyo cilmi iyo garasho iyo xishood iyo sirriig iyo ma jirto amaam albala walaadiga u fiirso bal waxaad isweydiisaa dumarkii Soomaalida ahaa markay 50 dhaafaan oo 60 gaadhaan oo ay siyaasad haweystaan oo baabka galaan bal waxaad isweydiisaa maxaa diinta ku diray maxaa diinta shaqo uga dhigay maxaa waxayna garanaynin ay u galayaan maxay qiyamka iyo akhlaaqda ummadda u weerarayaan maxay gaala iyo qashinkeeda u soo urursanayaan bal isweydii imisa dumar laga qabanaya diinta ilaahay imisa laga qabanaya na ka joog na xageed u socotaa na maxaad ka hadlaysaa laga celinaya xagee laga celinaya waxaad garan kartaa barnaamijku waa barnaamij ayaga ka sareeya ayaga ka fog waay hal dawlad oo dawladaha reer galbeedka ka mid ah waxay u diyaarisay barnaamijkaasi inuu Soomaaliya ka hirgalo oo qawaaniin laga dhigo intaasoo milyan oo dollar bay u diyaarisay qaar ka midana baxay qaar ka midana ay u diyaariyeen hal dawlad oo Yurub ka mid ah naxariista ilaahay aan ka jawaabno oo wanaag iyo naxariis dhaxdeena asu naxariisan aan uga jawaabna hadii Alleera aad iyo aad ayaa u maasantiin dhammaan meel kasto ay joogaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh habar wareertay waa la arki jiray ruux dhalinyaro wareerena waa la arki jiray
oday wareerana waa la arki jiray laakiin aniga midaan la yaabanaha waxay tahay dadka nooca u wareersanee qaabka u yaala cidda xil u dhiibatay saddex mid waay in la qasbay oo la yidhi dadka noocaas oo kala xil noogu dhiib oo macnaheedu noqonayo ummaddan aad hor joogtaay sideedaba taladeeda ummado kalaa leh mooye adugu khiyaar ma lihid maye dadka noocan oo kale inaad ummadda hor keento waxoogaa maslaxa abaad dhaafsatay oo taana macnaheedu waxa weeye ummadda mustaqbalkeedii iyo diinteedii iyo akhlaaqdeedii agtaada suuqu yaallaa oo waa iib yaa iga gadanaya ta saddexaadii waxa weeye dadka noocan oo kaliya barnaamijtay wataan baabad waafaqsan tahay oo waaba kula quman tahay saddex khiyaar oo midba midka kale ka xun yahay waaye warmadii aaway dadkii kale maxaa dadkan hor keenay ummadda maxaa loogu horwadaa maxaa loogu soo celcelinayaa bal isweydii diintu sidaasaa dawlad iyo dadba mas-uuliyad ay nooga wada saaran tahay ilaahay idinkii si gaarana dawladdu way u sii saaran tahay waan ilaalinaynaa waan dhowraynaa wixii horu marinaayo diintaan samaynaynaa wixii maxaanka ku dhaqankeeda xoojinaayo ayaan samaynaynaa ilaahay idinkiis nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarka nooca u yaallaayey markuu ka hadlayay wuxuu yidhi maa'ilaad waa kuwa xaqa iyo sawaabka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ka leexday inay ka leexdeen kumayna gaabsanina mumiilaad kuwa kale iyaga ka soo hadhayna way leexinayaan imisay gabadh da'yara lu goynayaan imisay akhlaaq xumo faafinayaan imisay xumaan dadka barayaan maa'ilaatin mumiilaat